waxaan halkan aan kaga hadlayaa xaaladda waddanku marayo iyo marxaladdan taaganahay mabda ayagaba odayaashii ugu horeeyayna waa sheegeen caaqil axmed weliifna waa ka hadlay taasaanu ayidsanahay taageersanahay aan u sheegana meesha waxa maraya waa harti iyo jeegaan baa dagaalamaya jeegaan oo Sacad Muuse iyo habar jeclaa habar Yunus iyo garxad soo ka baxeen iyo harti baa dagaalamaya wana iska celinaa ninka gabile ka soo duulay waxa weeyaan ninka harti dhulkiisa ku dagaalamaya xaq ku dagaalamaya kana baadil ku dagaalamaya ka baadilka ku dagaalamayana jabaya ilaahay idinkii waan iska celinaa waa la dagaalamanaa haddaanu jaacasiyaadnahay Puntland baanu nahay harti waan la dagaalamanaa saaq waan la dagaalami jiray godheeli iyo badweyn iyo qori dheer wixina dhaxmaray waanu ogna mana aanan ilaawin halkiibina noo taagan haddana waa sicil waliba dhabarkan ka dhufanaa kuwa tabarq sii fadhiya waxaan u sheeganaa mowqifkaygu inuu saa u cad yahay aan la isku walaacin waxaan kaloo halkan aan rabaa inaan fariin u mariyo nin Faysal Cali Waraabe la yiraahdo waalan oo ismada iyo caaqladeeda inta badan aflagaadeeyay waxaan maleeyaa Faysal xabaashaad ku miirsanaysaa oo akhlaaqda kugu soo noqonaysaa markaad dhimatid darada la wareegaysa haddaad xiniyalada laascaanood kaale halkaas oo xabad kaaga jiidana darada dambe ninkii dhulbaantay Faysal arkaan hadii xabada ku dhufto 70 nin lagu dilay laascaanood isaga qirtay oo yiri saaq ba ka dambeeyo ku dilay isaga noo haysana meeshii argeysa dhexdeeda ku dilay haddaad chance u heshaan isagana saasaan leenahay isaaqna waxaan leenahay war anagu Ingiriis 200 oo nin baa naga dhintay leedin xariiq yar buu dhiga isaga uu la dagaalamay idinkaanu in muslimiin oo gaala oo John iyo Michael la baxay baanu ka reebno in muslimiinna wixii Ingiriis ayna noola soo noqotaa hadee Ingiriis dhulkiisa ordo ugu taga oo isaga aada oo ka guura dhulka Soomaali baa leh haddii darada joojinay hargeysa burca degantiina Soomaali baa leh calanka Soomaaliya laga guuriyo u guura Ingiriiska u guura Manchester iyo Liverpool aada oo iyaga u aada oo u taga intaas aanu leenahay xuduudayada waanu naqaanaa dhulbaantiye saaq u dhaxaysa waa labada gaatama iyadaanu taganaa dhulbaantana waa Puntland oo dhanay soo raacsan midmirka lacagteena ka qaataan ayay beenini sheegi wallahi dhulbaanta waa Puntland oo artu waa Puntland oo daaradu waa Puntland way wada socdaan meesha ku dhimanin ciyaalka tooraq joogana dadka soo raacaysan wada lafahooda baad soo guranaysaa hargeysa barcawn baad ka baroranaysaa intaas aanu u sheegnaa riwaayadii iyo hadal yar iyo isku wareegay riwaayadahan aad soo dhigtaan Soomaaliland iyo waxa ay jeegaan aad soo dhigtaan halkan aad kama shaqeeyaan laascaanood baa leeyahay gobolka Sool baa la yiraahdaa calanka Soomaaliya ka taagan Soomaali weyn baa laga aaminsan yahay ma garad daraawiish baa Soomaali taariikhda u soo xornimada keentay ciyaalkii daraawiishtaana jooga intaas aanu u sheegnaa Puntland waxaan leenahay adeer waad raagteenay markan mari calasta tuuraq fadhiya ku soo dhufta anaguna dhabarkaan ku dhufanana wassalaamu alaykum warahmatullahi sumaado bismillahir rahmanir rahim sida odayga ka horeeyay yaan ku raacsana beesha jaamacsiya waxaan ku raacsana ama maxamuud kale ama dhulbaante waxaan ku raacsana codka ninka iga horeeyay nimankaan isugay qori dheere badweyn meel kasta urudkayagi iyo odaygaygii iyo nin gargeedkayga dhigay ee saaka odaya awdal iyo arab ka yimi saaka takorrad iyo odaya garowga ma doonayno waa iska celinaynaa waa isnaqaan annagu waxaan nahay ragiis yaqaana jiidda maxamuud garaad dhulbahanta iskuma jiro nimanka dadka jiciyey ee gool jilicda noqday ee si kasta loo raacay dadku iskuma jireen waa maxamuud garaad بهوست قوة نقول بيوتان أغل آخر وحمانتا ويلكي هذا واحد ذلك كسر إيه كمدعين هرنا وكمدعين ما ترى وكمدعين وعانوا لنا أو شو شقيستا هكا أودية إما نبع عروض يرير جينية هاني كمان هين ويكون من تينا مرة بنو وحي دبوا وتصرينا ويسكي علينا ومستنقان يدو ومستنقان ما قلت ويسكي علينا وحي البهنتي هاي وحي هرتي هاي يا منهاي وأنا بيش محمود قراد أما بيش شعسيات وارتا سوكع ودقالك قلع كوي فرها رير كيمي إيا لاندير إيا قرافرو إيو هيغاني إيو أردي يبوه كيمي أردي سيسروي ويل دراوش هو صح دراوش فانو نهيو باقي سارو تلح بالي نقول لك دراوش مهي وحتي تالله هيستو وحنو أركا إن محمود قراد فهو حبوران قاربا وحيدا دقالك كورا هذا تلح بوشوغا أما وحشوغا قضع على معثولي أما تقرق
bay oranayaan xaga war oo adaa gurigiisa xabad ka dhacay joogay xagaan ka warrabaan yeelay baan keen iyo dabide awee markaa haddaan beesha shaacsiyaadnahay wixii dhulbahanta yahay baan wixii harti yahay baan wixii maxamuud garay yahay baan maal iyo adduun iyo xabad toon ka la harimayno kuwii la laayay ee ku dhaawamay ama ku dhintay Soomaaliya ma tigin guryahoodii xabaashoodiina ma tigin dhaawacoodiina ma tigin midna waxa ma tigin waxaan leeyahay yartay jooga halkaas shaacsiyaad adeer hayaal aabayaashii iyo wiilasha waxay ku dhintay qori dheer iyo ugu weynay guumays iyo jiidali ila jiidali bal faadiyal daqa ma garatay maxamuud dhaliyada maxamuud garay wartoolkii soo raacday bay bartiyaha noqonayeen eheluna arbaatii ku dhintay maanta $500 layna ayaa ku dhibanaysa $700 baa lagu hayaa anaga ku hayna $700 hadalna bartiyaha ma hartinahay dadkaaga ka qaybda wallahi kii la qabtay wala diiraya waxaan leeyahay in xaaji maxamuud xiig adeero mar baad noo talisay dal bees jaacsiyaadnahay ama reer usmanahay baad noo talisay markana wuxuu noqdaa marka dhageysay baashii dhageysay xaaji maxamuud dhageeyay qursan xissi ay ku heshiin waayeen bagarta waa jabnay talada baan ku dhibanayna ma jirto maanta halkaaga joog odaybata garaadka waxa la garaa isaa kuma doorane annaga ku dooranay dal bees jaacsiyaadnahay garaad jaacsiyaad baata garaad maxamuud garaad baata mid dhulbahantaata mid harti baata mid daarood baata adeero kuma dooran isaaqay baanta la kala guuriyo wadku iyadoo lagu doortay oo garaadku aan inuu dhig ka taliyo maanta waa la kala guuriyay de tolka raac oo ka tali dhig iyo dhaqaba isla barbartaan abdi warabe waa dhinac taagan yahay iyo boqoradoodii haadiga dhinac ka taagay taasaan wada garaad ku leeyahay meesha shaacsiyaad waxa leeyahay kii halka naga dhinta dal meesha shaacsiyaad waa helo naar kii magmare dhaqan mare waxba mare xasuuq laaya uguna horeysay xabada ku shaacsiyaad ku jirmeesha waa dhameeyay taakiidna nabadoonka ugu weyn beelaha dhulbaante ama maxamuud garaad ama siyaad maxamuud caaqil axmed cabdigaas cawke hadalka ayuu ku quracnahay waa la qabnaa waa la ognahay waa la soconaa waa iska warhaynaa waxaan u sheegaynaa harti hadaana jaamacsiyaad waxyaabo badan baa dhacayeen hadaana jaamacsiyaad kuma antushan inaan noqono Soomaaliland habeenna kuma antushan maalna kuma antushan dee nin shaqaysto milyan qaata ama dhowr boqol qaata ama kun qaata dee anaga u gowrici maayo go'aankiisa mushariid lana marsiin maayo waxaan leenahay wixii hartiyaabana wixii dhulbaanteebana wixii maxamuud garaad heebana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad waxaan ku celinaynaa hadaanu jaamacsiyaad nahay oo ka mid nahay odayaashiisii iyo xigradkiisii aqoonyahankiisii mutacallinkiisii ninkaboodkiisii dal iyo dibadba hadaanu nahay wixii hartiyaabana saasaan beelaha daarood u sheegnay waana ka soo horjeednaa ragga yiri hergeysa ka yimaadeen shaqatiga guryahooda u shaqatigay xaafadooda u shaqatigay iyo halka yimaadeen gobolka Sool wax ka hadli karaya haba yaraatay ma jirto una fasaxay ninka burcad jooga iyo ceergaabo jooga iyo hargeysa jooga inuu wax bilaado oo awyaasha iyo wasiirteeda la caayo anaga la cabriyo saxaafadda la ka cabriyay in qolo saxaafadda ka hadli karaya haba yaraatay ma jirto taasaan sheegno xuquuqda aadamaha meel kasta badaar joogo xaaladuna inta ka sii xumaanaysa hadii la cabriyay xorta qowlka iyo saxaafadda la ka cabriyay dagaalkan inta ka sii xumaanaya nacaqlna wala garanaya nacas loo sheegay billahi tawfiiq